maanta waa 8 March waa maalin caalami ah waa maalintii haweenka dunida waxa munaasabad ay wada leeyihiin dhammaan haweenka dunida meel kasta ay joogaan waxaan runtii munaasabadan uga mahadnaqaya Guddoomiyaha garabka haweenka iyo hoggaanka garabka haweenka iyo heer gobolba munaasabadan qaaliga ah quruxda badan ay noo soo sameeyeen iyadoo lagu xusayo lagu weyninayo maalintaas marka waxaan leeyahay haweenka gaar ahaan haweenka xisbiga WADDANI iyo haweenka Somaliland iyo haweenka caalamkaba hambalyo 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 garabka haweenku runtii waxay muujiyeen inay madaalayaal yihiin waxay muujiyeen garabka ugu firfircoon xisbiga inay yihiin waxay muujiyeen garabka qura si joogta u shira ee shirarkii xisbinimada qabsada waxay muujiyeen inay xisbiyahan leeyihiin iyagoo ay ognay kaalinta ay ku lahaayeen guushii xisbiga iyo halka uu soo gaarsiiyay xisbigaba waxaan filayaa kaalintii mid ka weynayna maanta diyaar u tihiin waan idinka mahadnaqaynaa xisbiga ballanqaadyadiisii waxaas leeyahay tii ugu muhiimsanayd dee way fushay oo waxay 30% in la siiyo haweenka golaha dhexe xisbiga ka waraysaana waa 300 iyo wax yar marka 100 xubnood ka badan baa haweena waa xisbiga qura bal axsaabtooda soo baaro waa xisbiga qura halkaas soo gaarsiiyay dumarka ma sha Allah tabarakallah waa xisbiga qura ee hoggaankiisa haween ku jira haba yaraadaan waa xisbiga qura ee fulintiisa 8 xubnood ka badan ku jiraan marka waxaan leeyahay inta laga dhimanna waan dhamaystirayna waxaan runtii siinaynaa muhiimadda ay leeyihiin hooyada dawa laga sheekeeyo qiimaheeda cidina ma qiimayn karto dad islaam baynu nahay xuquuqda islaamku siiyey cidina ma buuxin karto innaguna dad islaam baynu nahay innagoo qaacidada islaamiga ka duulayna waxaa xisbigana ka go'an inuu hadduu xukunka yimaadana uu gaarsiiyo halkaa uu ku ballan qaaday ee 30% xukuumadda WADDANI haddii alla ka dhigo macnaheedu maaha 30% ma dhaafi kartaan sida la sheegayo idinkana waxaa laydinka rabaa firfircooni badan iyo kabahoo naga kuleelaysaan baa loo baahan yahay inaad shaqaysaan baa loo baahan yahay annagu xisbiga haween iyo rag u kala soo cimina laakiin kolba dee tallaabaynu qaadaynaa oo isku soo dhaweynaynaa runtii waxaan idinka mahadnaqaynaa waa xisbiga qura garabka quraas leeya uu diyaargaroobay hawsha xisbiga dhaqaalaha oo iska ururisaan mandheera maantli weyd qayb baa ku lahaydeen xisbiga dhaqaalihii u geeyey annagoo waa qolada quraas leeya imaka maca hoggaanka marka lagu daro u diyaara dhaqaalihii xisbiga inay bixiyaan ay weliba dheeraad ku dara waanu idinka mahadnaqaynaa waa idinku taageeraynaa qorshayaal badan buu xisbigu ka leeyahay oo uu ka mid yahay kuwii xogeyu ka dhawaajiyey oo ah in dumarka la dhiirigeliyo oo shaqaabuur loo sameeyo oo kuwa shaqaysta cashuurta laga yareeyo waa siyaasadaha xisbiga ka mid tahay insha Allah waan hirgelin doonaa haddii ay ka dhigo runtii kelimad baa ku daraya maanta halkan
Somaliland in badan bay ay misla jiitameynay arrimaha doorashada laakiin waxaan ku faraxsanahay wala hawgi laga baxay in laga heshiiyay doorashadii la qabto heshiis siyaasi ah dhacay in doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka way noo qabsoomaan intaanu dhammaanin sanadkan aynu ku jirnaa 2020 arrintaasi waxay guul u tahay Somaliland wixii qabiye ka dhiman arrimahaas doorashada axsaabtu waxay ku heshiiyeen si wada jira inay dhammaystiraan marka waxaan soo jeedinaya wada hawga laga baxo in doorashadii loo diyaargaroobo oo ma dhacaysa iska dhaaftaanoo shacbiga reer Somaliland aad doorashadii u diyaargarowdaan cabashadu way ku badan shacbiga walaalahay shacbiga waxaan leeyahay hadduu xumaado iyo hadduu wanaagsanaadaba qofka deegaanka imanayana idinkaa soo saaraya qofka baarlamaanka imanayana idinkaa soo saaraya hadhowna cabashadu cidda caban doontaa waa idinka haddaa mid xun soo saartaan idinkuba caban doona marka waxaan insha allah kula talinaynaa dhammaan shacbiga inay doortaan qof dhibaatooyinka ay waayaaraga u yihiin maalin walba meeyarka ka cabataan iyo deegaanka hargeysa soo maaha xashiish baa ka cabataan wadaxuma ka cabataan biyalaan baa ka cabataan intaa kuwii wax ka qaban lahaa ama inaan ha noqdo ama inane baa laydinka rabaa baarlamaankana waa la mid shacbigiisa matala oo dareenkiisa ku shaqeeya oo waxaad doonaysaan ku qasba xukuumadda ayaa loo baahan yahay inaad soo saartaan dhammaan dadkii doonayay inay xisbiga waddani iska sharaxaan meel kasta ama degmo kasta ha joogaan 23 degmo doorasho leedahay marka fariintaan u diraya waxa weeye diyaargarooba anna waan jecelahay bisha saddexaad intaanay dhammaanin xubnaha doonaya inay xisbiga iska sharaxaan inay xisbiga u caddeeyaan inay musharaxiin yihiin xisbigu wuxuu taageersan yahay wax kastoo dumarka lagu bari taarayo hadday tahay kootaha wuu taageersan yahay 100% buu taageersan yahay insha allah waxaan rajaynaynaa wixii qabiyaa saadii sheegay ee doorashada ku saabsan waxaa si wada jira loo dhammaystiri doonaa xubintii aynu hakinay ee guddiga doorashooyinka halkiiskii war ka saaray insha allah doorashada ka soo noqon. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.